dhiilo iyo daruuro colaadeed ayaa dul hoganaya dalka Syria kadib markii ciidamada Maraykanka iyo Faransiiska oo isgarabsanayay heegan geliyeen maraakiibtooda dagaalka oo ay ku jiraan kuwa diyaaradaha xambaara. waxaana la filayaa in saacad walba ay gantaalaha Tomahawk iyo Scalp ay roobka uga dhigaan saldhigyo waaweyn oo military oo ku yaala dalka Syria iyo waliba xarumo dawladeed oo markan ku yaala magaalada Dimashq lafahanteeda oo wax badan ka badbaaday dagaaladii sokeeye. ciidamada Ruushka oo saldhigyo ku leh magaalooyinka Tartus iyo Haymeme ayaa sheegay in haddii khatar la geliyo ciidamada Ruushka ay dhulka soo dhigi doonaan diyaaradaha xulufada iyo waliba gantaalaha lagu soo liishaamo markan dalka Syria. madaxweynaha Maraykanka ee Trump iyo waliba kan Faransiiska ee Macron ayay u muuqataa inay tijaabinayaan awoodda gantaalaha ee 300 iyo 400 ee Ruushku dunida hore uga yaabsaday. waxaan si loogeyn sida uu uga jawaabayo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin oo aan la saadaalin karin ficiladiisa.